Assalaamu calaykum iska warama ma fiican tihiin maanta design processkaygan doonaya inaan idinla qaybsado horta marka ugu horeysa anigu ma sameeyo looga keliya meel iska taagan laakiin waxaan sameeyaa brand course wato oo dhan waxay ka bilaabmataa horta inaan qofka wada hadalno qofka markaan wada hadalno kadib aan wareysto waxaan u diraa informationkayga oo usually waxay ku qoran tahay PDF file ayaan la qaybsadaa qofka ay ku qoran tahay qiimooyinka iyo waxyaalahan qabtoo dhan wada hadalka kadib waxa aan weydiiyaa qofka su'aalo sheegaysa dadka aan brandka u sameynayo adigu iga caawinayaan u sameynaya brandkan su'aalada waxa kamid ah waa maxay ganacsigaaga maxaad iibisaa yaa ku ah target group iyo su'aalo kale oo ku saabsan qofkaas wuxuu iibiyo businesska noocuu yahay markaa kadib aan ogaado taa waxaan usoo bandhigaa qofka 3 mood board ama 3 jiho aan brandka u qaadi karno 3daa jiho maaha inay yihiin 3 wax oo aad u kala duwan laakiin usually waxa weeyaan wada hadalkeeni wixii ka soo baxay wixii qofka isku fahanay ayaan ka sameeyaa mood boardna waa kan aan tusaya hadda maxay heede waxana weeyaan adigu 3 aankal wixii laga eegayo wixii aan isku fahanay oo 3 meel laga eegi karo sida hadhowna hal dhinac looga doorto maaragtay ama hal xabo mood boardka laga doorto 3daa kadib after that mood boardka aan isku fahano jihadaan u qaadayno brandka waxaan sameeyaa markaa the final design oo hadhowna kasoo bixi doono resultka brandkaasi si uu ekaan doono marka wakaa isagoo kooban warkii saan u sameeya anigu brand say idinla tahay ila qaybsada process dheer miyaanu qofku waxaan jecel inaan wada shaqayno wax isla qabano qofkan waa businesskiisa so anigu waxaan u qabanayaa service marka waa inaan qofka dee wuxuu doonayo iyo dadku rabo inuu soo jiito ayaan maaragtay u sameynaynaa brandka